san lee dabku ka baktiyaha loo shida dabka ka albaabka soo ootay albaabkiisa hal la garaaco dad baa jira laga yaabo iyagoo dhulka u dhacay waxna inaanay ku weydiisanay sadaqadu waa cajiib sir badan baa ku jirta caafimaad haddaad doonayso waxyaabaha lagu helo sadaqa ugu horeysa muraad kale haddaad leedahay waxyaabaha lagu helo sadaqa ugu horeysa cabsida maanta adduunka caam yeeshay waxyaabaha lagaga badbaadee ugu badan sadaqa kowka ah nabigu waxa uu sallallahu alayhi wasallam inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab ar-rabb tabaaraka wa ta'ala sadaqada hoos wax loo bixiyo iyadoo adoonkiyo ilaahay mooyee cid kale aanay ogeyn sadaqada hoos wax loo bixinayo cadhada ilaahay ayay bakhtiisaa oo ay damisaa cudurrada iyo cabsidu cadho ilaahay bay ka dhalataa wax lagu bakhtiyana waxa ugu mudan in waxa weeyaan beerka gaajoonaya ee bani aadamka ee karaamada leh inaad waxa weeyaan qoyso oo calooshaas maran aad buuxiso waa waxa ugu weyn naxariistu ku soo degto ilaahay hadduu ugu naxariistay aadamihiisii ay loo naxariistay ay oo gabadhii zaaniyada ahayd ee ayga waraabisay ilaahay ugu dambi dhaafay maxaad u malaynaysaa mu'min karaamaysan qofka calooshiisa buuxiye ee ka farxiyana maxaad u malaynaysaa ajar intee leeg buu ka heli karayaa ay baa lagu helay ajar iyo naxariis haddii lagu naar galay bisad qaraabkeediina laga xidhay waxna aan la siin sida xadiidka nabiga ku ansaxday qof bani aadam oo karaamo leh haddaad dhibtana cadaab intee leeg baa ka dhalanaysa axaadiida nabiga waxaa ku sugan mayeedhaankii iyo bahaa'imtii la xidhay ee la ciqaabayna waa lagu naar mutay xayawaanaadkii loo naxariistayna jannaa lagu galay aadamaha ilaahay karaameeyeyna haddii loo naxariisto darajo weyn iyo janno ayaa lagu helayaa ifkana ilaahay kurbada iyo dhibaatooyinku ku faydayaa waxaan si gaara u xusayaa waxa weeyaan madaarista iyo goobaha waxbarashada ee la fasaxay waalidku macallinkii ilmihiisa wuxuu dhigaya waa inaanu ilaabin hadduu ilmihiisa iyo ooridiisa iyo ubadkiisa u warwarayo kii qur-aanka ilmihiisa u dhigayana waa inaanu iloobin macallimiintii wax dhigaysay ama ha dhigaan maadiga iyo duruusaha waxa weeyaan adduunyada ama ha dhigaan diinta iyo qur-aankee maanta markii fasax u yimid ee bilina ay dhammaatay bil kalena lagu daray dhexdeenna inay ku daranyoodaan ma fiicna oo waa arrin aad iyo aad u naxdin badan inay ku gaajoodaanna waa ayaan daro cuquuba ay ka dhalan karto waa in waalidku isxilqaamo maanta waa markii saddexaad ama saliidii saddexaad ay Maryan Natural Oil ay noo soo saartay saliidaas waxaan rabaa inaan ka hadlo waxtarkeeda sida loo isticmaalo waxyaabaha ay u fiican tahay sidoo kale waxaan noo wadaa sida qof walba oo ku heli karo insha Allah khayr soo dhawaada markuu u horeyso waa janaalka Subayr Salmaan hada igu cusub tahay dhacbacjuk igu sii insha Allah khayr markuu u horeyso hadii aan ku bilaabo waxtarka ay leedahay saliida iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay laba iyo sida loo isticmaalo saddex iyo waxyaabaha aad ka faa'iideysid afartaas shay aan rabaa inaan ka hadlo saliidan Maryan Natural Oil magacan ma ahan magac shali iyo maanta soo baxay ma ahan magac oo nigu cusub inta badan saliida Maryan Natural Oil waa saliid 4 jir ah oo yacni ilaa muddo 4 sano ay soo waxtarka ay leedahay saliidan aad u jeedin Maryan Natural qaybteeda bidaarta ama madoweysta ama iyo abbay waa sheekada koow dhahay dad badan aan ku dhahayaa waxaan ku dhahay madow ma la sheegoyaa hooyaan ku dhahay magaalada dhan insha Allah khayr saliidan waxay waxtar u leedahay koow dadka qaba bidaarta ma ahan dadka oo bidaarta yani timaha dhan shimeenta ka naqdeen waxaan ka wadaa dadka wax yar il hataa u furneeno madaxa dhan liisha ka naqday dadkaas timo ma soo baxayaan laakiin dadka timaha ka haadayeen ilaa 10 xabo oo xaad haday ku taalo timaha waa soo bixinaa saliidan markuu u horeyso runta wax ka fiican ma jirto been wax la dhahayn Subayr ha ugu imaanin tan labaad ee u fiican tahay waa dadka cirada qabo markii la arki baahida dadka isticmaala madooweysada sidoo kale dadka madooweysada cilaanka isku dara
laakiin markii bidaarta ay kuugu bilaabanayso haddii aad ka hortagto aad isticmaasho Marian Natural Oil qaybtan hadda aan xayeysiinayo wallaahi aan ku dhaartay wallaahi wax ka weyn ma jirto lagu dhaaranaaye boqolkiiba 90 ma ku dhahay boqolkiiba 100 waa ka faa'iideysaa waayo saliidan waa la huwa boqolkiiba 100 waana saliid la soo tijaabiyay waxyaabaha oo la xayeysiinayo markaa maqashid waxaan saan waay kida waay laakiin qofkaas ma dhaaranayo laakiin ani shakhsi ahaanteyda waxaan xayeysiinayo waxaan dhaaranayo waayo sawirkan u jeedin qofka timihiisa saan markuu noqdo waxa ku bilaabanayso bidaarta garoonka waxa waaye bidaarta oo yacni oo kor ilaa ay hoos timaha bes way kaaseeti waaba u dhamaad qofkaas garoon diyaar inay ku soo degto la sugooyaa waayo laamigii waaba jijaween oo waxa soo baxay bacadkii yacni timihii dhan waaba dhamaadeen addoonku wax ma dooran kara isagu wixii ilaahay kuu qadara adiga waa inaad ku qanacdaa lidaalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay malaa'igtu markay ilmaha yar ay nafta ka qabtaan ayuu ilaahay malaa'igta ku yidhaahdaa addoonkaygii ilmihiisii ruuxda ma ka soo qaabateen haa bay yidhahdaan addoonkaygii midhihii qalbigiisa ma soo qabateen haa waan soo qabannay markaasuu ilaahay yidhahdaa famaada qaala cabdi addoonkaygii markaad ilmihiisii ruuxda ka soo qabateen muxuu yidhi balii sheega markaasay yidhahdaan xamidaka wastarjaca xamida ma macna alxamdu lilaahi calaa kulli xaal buu yidhi inna lilaahi wa inna